warbixintan ayaynu ku eegi doonaa sanadkan dhamaaday ee 2019 waxqabadka muuqda ee xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ee uu hogaaminayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ay ka qabatay gobolka Sool. bididkii naga tifiri tacabkiisii helo waxaanu tamarsanaa saamilo wada tartamay amniga caafimaadka biyaha tartanka ciyaaraha horumarinta maamul wanaaga shaqaabuurka dhalinyarada bandhiga caalamiga Laascaanood International Book Fair iyo nashqadeynta magaalada Laascaanood waxa ay ka mid yihiin tiirarkii ugu waaweynaa ee sanadkan dhamaaday ka qabsoomay gobolka Sool. dashay halgamaanayo soolay hada soolay aboor gabyama walaga hagaaday dhinaca amniga iyo nabadgelyada guud ahaan gobolka Sool mid si weyn looga shaqeeyay iyadoona la heshiisiyay beelihii walaalaha ahaa ee colaadda ku dhexmartay koonfurta gobolka Sool isla markaana dibadajin loo sameeyay kumanaan qoys oo ka barakacay deegaanada Dharkeenga iyo Dhumay Dabataag iyo deegaano kale oo ay ka dhaceen dagaalada dhexmaray labadaasi beelooda. waa dhinaca amniga sidoo kale waxaa la cirib tiray muqaadaraadka khamriga iyo qaadashada hubka gudaha magaalada Laascaanood. gobolka Sool baan uga mahadcelinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi magacaabistii gobolka ay soo diray waxyaabihii 2019 intii aan joogay gobolka Sool inooga qabsamay. marka koobaad sanadkan astaan baan u qaadanay sanadka horumarka iyo nabadgelyada gobolka Sool ee 2019 dhinaca amniga haddaan ugu horeysiyo amniga xaaladda amniga gobolka waxay maanta uu ku sugan yahay xasilooni amni iyo mid siyaasadeed. aanu qabanay deegaanada gobolka Sool dadkii walaalaha ahaa ee isku dilay koonfurta gobolka Sool ee shaqaaqadu dhexmartay waxaanu ka howlgalnay in ciidamadii maleeshiya beeleedka ahayd ee isku dilay deegaankaasi ay soo xaroodaan oo labada ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu gacanta ku dhigo isla markaana la qarameeyo ayna maanta difaaca dalka ee qarankooda ay sugan yihiin iyagoo aan beel iyo qolo cidna u shaqeyn ee qaranka u shaqeeya. taas waa guul iyo horumar ammaanka laga qaybeyna waa nagala qaatay. runtii waxaan u kala wareejinay duugtii dadkii dhintay dhibaatada soo gaadhay iyo furkii la kala furtayna waxaan u kala wareejinay sida muuqaalada ka arki doontaan gacanta ayaanu ka saarnay dhaqaalihii iyo lacagtii iyagu laga soo qaaday reer walba xilli wax xukuumad waan ka soo qaadnay. dhinaca caafimaadka waxaa gobolka Sool sanadkan ku talaabsaday horumar baaxad leh waxaana xarumo caafimaad laga hirgeliyay deegaanada Qabri Bayax Karin Dabayl kabaalka Hargeysa Tuula Samakaab Shululux Qoriley iyo MCH-ka deegaanka Ari Cadeeye oo la dhameystiray. sidoo kalena waxaa cusbitaalka guud ee magaalada Laascaanood ka howlgashay hay'adda ballaaran ee MSF oo bulshada gobolku ay si weyn u soo dhaweeyeen. dhinaca caafimaadka dawlad soo gudbo waxay ogtiin maanta gobolku caafimaadka inuu si aad ugu talaabsaday. waxa kamid ah hay'adda MSF ee dhaqaatiirta xuduudda lahayn oo cusbitaalka Laascaanood loo wareegtay oo maanta gacanta ku haysa oo 3 dhibaarmanti ku sii bilaabsa shaqada qaata MCH-da oo deegaano fara badan laga dhisay. deegaanka Ari Cadeeye MCH-kiisii oo hore u jiray waa la dhameystiray. dhinaca ciyaaraha waxaa sanadkan dhamaaday xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland gobolka Sool ka hirgelisay tartanka ciyaaraha Sool Cup oo ay ku tartamayeen 16 kooxood oo kamid ah kooxaha Seero ee gobolka Sool soconayna muddo bil dheeraad ah. garoonka kubadda kolayga oo isna xidhnaa muddo ku dhawaad 30 sano ayaa isna dib loo furay isla markaana lagu sameeyay dayactir. waxa farxad weyn oo ah in halkan wasiirku xariga nooga jari doono garoonkii basketballka ama kubadda gacmaha oo dowladda hoose degmada Laascaanood ay maalgelisay baa wasiirku xariga nooga jari doonaa. oo madaxweynaha dowladda hoose runtii wax qabad muuqday muujisay waxyaabo kale oo far badan dowladda soo wadaa iyo sidoo kale tartanka marathonka orodka 5 kiiloomitir ay ku tartamayeen 120 dhalinyaro ah ayaa isna sanadkan ka qabsoomay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. nashqadeynta toobalanka iyo master balanka magaalada Laascaanood ayaa iyana kamid ahaa tiirarkii ugu waaweynaa ee qaranku ka hirgeliyay magaalada Laascaanood iyadoo la baneeyay wadooyinka halbowlaha ee dhexmara magaalada iyo kuwa banaanka ah. sidoo kalena waxaa heer gabagaba maraya wadada isku xidha garoonka diyaaradaha iyo magaalada. wadada isku xidha deegaanada Ari Cadeeye iyo Yogoori ayaa iyana dayactir lagu sameeyay.
waxaa karo qaadis iyo tayeen lagu sameeyay shaqaalaha dawladda ee heer gobol iyo heer degmo 250 qof ayaa shaqo abuur loo sameeyay sanadkan dhamaaday 2019 kuwaas oo 130 kamid ahi ay dumar ahaayeen sidoo kalena wasaaradda arrimaha bulshada iyo qoysku waxay wacyigelin siisay dhalinyaro badan si looga badbaadiyo halista tahriibka oo loo aqoonsaday mashruucii ugu qaalisanaa ee shaqo abuurka 2019 madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi inuu fuliyay oo shaqo qaran inaguna qayb muhiim ah ka qaadanay waxaan aad ugu mahadcelinayaa gabdhaha laasacanood oo wiilasha laasacanood ka fiicnaaday wiilasha gobolka Sool ka fiicnaaday dhinaca biyaha waxaa qaranku sanadkani dhamaaday 2019 dayactir ku sameeyay 13 ceelbiyood waxaana la saaray solar system si looga raysto matooradii ay ku bixi jireen shidaalka iyo kharashka badan sidoo kalena waxaa laga hirgeliyay haamaha kaydka biyaha iyo dhaaman waaweyn dhinaca deegaanka wasaaradda deegaanku sanadkan waxay qaaday hawlgallo lagu joojinayo xaalufinta deegaanka iyo dhuxulaysatada iyo beerista dhirta oo kumanaan geed lagu beeray deegaanada gobolka Sool iyo gudaha magaalada Laasacanood bandhiga caalamiga ee Laasacanood Book Fair ayaa dhamaadka sanadkan isna lagu qabtay magaalada Laasacanood isagoona martigeliyay 100 qof oo ka kala yimid daafaha caalamka iyo dalalka dariska ah dhinaca waxbarashadana waxaa sanadkan dayactir lagu sameeyay 18 iskuul waxaana la dhisay ilaa 5 iskuul oo cusub 18 iskuul dayactir baa lagu sameeyay waxaa la dhisay oo kale ilaa 5 iskuul oo cusubna waa la dhisay iskuulo cusub oo bulshadu dhistay oo dawladda lagu wareejiyay way jirtaa oo la soo wareegnay dhinaca xanaanada xoolaha waxaa sanadkan la daaweeyay si loo daryeelo xoolaha nool malaayiin xoolo ah oo nooc walba leh ugu dambeyntiina gudoomiyaha gobolka Sool Cabdiqani Maxamuud Jiro waxa uu mahadcelinayaa wasaaradaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo kuwa gobolka Soolba ciidamada kala duwan ee ka howlgala gobolka Sool waxgaradka cuqaasha iyo ningarboodka sida ay uga shaqeeyeen nabadda iyo horumarka dhinac walba leh ee ka hana qaaday dhammaan wasaaradaha dhan oo isku wada qaadaya iyo isku dhan baan mahadcelinayaa iyo hadii ciidanka asluubta noqoto iyo hadii ciidanka qaranka noqoto waxaan uga mahadcelinayaa odayaasha gobolka Sool cuqaasha deegaanka ku nool runtii shaqada wanaagsan ee amniga ka qabteen haddaan odayaashu garab taagnayn wax badan aan cuqaasha iyo odayaasha ningarboodka deegaanka gobolka Sool ku nool aan wax badan la qabanayn wax badan ma aan qaban karnayn Liban Axmed Cisse Liban qaran warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Laasacanood ee xarunta gobolka Sool bulshooy boqolaal kuno sanaynu ka baahanay dhulkeenna barwaaqadu allah boqorkii dhigay bulshooy boqolaal kuno sanaynu ka baahanay dhulkeenna barwaaqadu allah boqorkii dhigay haddaynu baraarugno inaynu la soo baxnay badiyo barigeennan weyn ambaadhno wixii ku jiray beliyo reer hebelka jira haddaynu baraarugno inaynu la soo baxnay badiyo barigeennan weyn ambaadhno wixii ku jiray beliyo reer hebelka jira badroolkuna waa ka kow macdantu way badantii badroolkuna waa ka kow macdantu way badantii ilowlaya baashaqadu ballani waynu sidaa badroolkuna waa ka kow macdantu way badantii badroolkuna waa ka kow macdantu way badantii ilowlaya baashaqadu ballani waynu sidaa
suginin u soo burqado berriba laga taajire barbaarta waaysi binada noloshooda dhiga bulshadeydii asuginin u soo burqado berriba laga taajire barbaarta waaysi binada noloshooda dhiga qabyaalad waad bele kambaajiya diido qayrka oo lama bariye bigayska caddaysto bislaysta waxaad cuntaan qabyaalad waad bele kambaajiya diido qayrka oo lama bariye bigayska caddaysto bislaysta kambaajiya diido qayrka oo lama bariye bigayska caddaysto bislaysta waxaad cuntaan qabyaalad waad bele kambaajiya